shacabka ku nool magaalada Berbere xarunta gobolka Saaxil ayaa maanta isku soo baxay banaanbax ay ku taageersan yihiin xildhibaan David oo ka tirsan golaha baarlamaanka dalka Ingiriiska oo doodgeeyay baarlamaanka Ingiriiska taasoo ka dhan ixtiraafka Somaliland. Shacabka ku nool magaalada Berbere ayaa arintaasi taageeray sidoo kalena waxay u jawaabeen madaxweynaha dalka Soomaaliya ee Farmaajo waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxaan leeyahay Somaliland waa maalin aad iyo aad u weyn waa maalin maxaa ku dhacday caalamka indhihiisa oo dhan aan istusayno waa maalin aanu hambalyeeyno Somaliland soo dhaweynta Ingiriiska ay ku soo dhaweeyeen golahiisa baarlamaanka waxaan leenahay aad iyo aad baa mahadsantihiin dadka caalamka waxaan ka sugaynaa intiisa kale inay sidaa iyo si ka sii badan noogu soo jeestaan maadaama aanu buuxinay shuruudihii Somaliland caalamka oo dhan shuruudihii ay lahaayeen maadaama aanu buuxinay Soomaaliyana waxaan leenahay dhagaha ugu rida dhagaha tan way dhaqaaqday cidna bari mayso ha ku mashquulina waxaan leenahay walaalaya Soomaaliya tii dad walaalaabaynu nahay daniina qabsada sanu danaayaga u qabsanay annagana noo soo hambalyeeya idinkana aan idiin ducayno saasaan leenahay adoo nahay dadkii Somaliland madax iyo minjaba shacab meel kastuu jooga caalamka waxaanu leenahay ku soo dhawaada soo hambalyeeya ictiraafkayaga soo hambalyeeya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan u sheegayaa meel kasta Soomaali joogto tin waa Somaliland waana muqaddis hormarna way gaadhay Somaliland ha noolaato niga barnaamijyo waxa leeyahay Soomaaliyana waxa leeyahay Soomaaliya dad magaraasa wada dhashay waxa inagu marateene Soomaaliya tin waa Somaliland waana israacday farmaajiyaan waxba iska soo oran yaanu oraniyo waa israacnay waxa anaga Somaliland ma leeyahay mudan Muuse Biixi Cabdina oo madaxweynaha mar walba raacsanay بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan marka hore hambalyo uga dilayaa jamhuuriyadda Soomaaliland madaxayeen bijo meel gudaha dibad meel joogaanba waa inoo hambalyo mar labaadna waxaa salaamaya oo hambalyo u dilayaa kal iyo laba golayaasha Ingiriiska iyo ayna tadbiirkeeda adduunyada inoo soo jeesatay ee ishaadii la qabatay ee inoo doonaysa إلهي نوحدي قولوا محدي سومالنا ومحددي تاسواتا فرماتشو حوندي يا كوحديسه halka hada ragba ku hayo casar iyo baro iyo duhur iyadoo kabo laalaadii ayay barta ka baxeen adeerka uu ka caray wixii ka saaray way joogan annagu ku bariyo mayno waxa la hadlayaa Soomaaliya anagu ku bari mayno shantaasaan ku rabnay maanta shantii baan ku haynaa maanta waa maalin weyn shacab weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta oo jooga hambalyo ayaan u direynaa meel kasta shucuurta maanta shacab weynaha dhalinyarada dumarka haweenka guud ahaanba caalamka daafiisa kala duwan gaar ahaan waxaan u mahad celinaynaa golaha USA jamhuuriyadda Ingiriiska oo Somaliland ajandihii dooda lagu soo daray hore uma dhicin orisitaagan marka labaad waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Mujaahid Muuse Biixi Cabdi oo tagay dawladda Ingiriiska waana la ictiraafay waxaan u sheegayaa Farmaajo ninka ku jira eraga ee bilan Soomaaliya waxa lagu ilaaliyaa Uganda isma ilaaliya ciidamo waxaan ku waxa ilaaliya federaal dhammaan waxaan hambalyeeynaa dadweynaha ku nool jamhuuriyadda Somaliland afaha dunida ay ka kala joogaanba waxaan leeyahay Somaliland ictiraafka Somaliland waa muqaddis mudnimada Somaliland waa muqaddis Soomaaliya waxaan leeyahay waxba ku habsaamina dalkani waa dal talaabsaday waa dal socday waa dal caalamka gaaray waxaan leeyahay Farmaajo gudahaaga iyo gurigaaga ka tali gurigaaga maanta talo u baahan uma baahna Somaliland la talin iyo inaad tiraahdo aniga ii soo mara الله أكبر Somaliland ha noolaato anigoo ka hadlaaya ama ku hadlaaya afka oo ah chief caaqilka beelaha Carbeed iyo Hindi ee ku nool gobolka Saaxil iyo Somaliland ba waxaan leeyahay oo Somalilandera anagoo ah Carab iyo Hindi oo ku nool Somaliland waxaan jecelnahay jiritaankeeda oo muqaddasa اعترافkeeda oo muqaddasa Somaliland ha noolaato
maanta waa maalintii qadiyadda goonigosadka ictiraafka aynu raadinaynay ilaahay waxaynu ka baryaynaa in ilaahay inoo rumeeyo ictiraafkeenna oo ilaahayna ictiraafo alawal ilaahay baa mahad iska leh halka maanta waxaan soo dhaweynayaa qaranimada somalilan waxaan soo diyaariyey gabay goonigoysada somalilan gooni isku taagtay gooni isku taagiyo halgeekii dalkayga gacmaha isqabsaday baa garab leema siinine guul aan ku gaadhay hoostaga garaadka ugu filan gaxba dhammaaya annagu waxaan somalilan ha noolaataanu leenahay ha noolaato somalilan annagu shicibka haddaanu nahay dawlad haddaanu nahay mid kasta haddaanu anagu waxaanu leenahay ninkaa farmaajo allaha naga reebo somalilan hambaliyo maanta farxaddayda lama soo koobi karo anoo gobolka saaxiya waxaan leeyahay ninkaa farmaajo hanagu daalin beri horena anagu tallaabsannay yaa ictiraafkii baan ugu taaganay maanta hambaliyo hanagu daalin barakaatu annagu maanta maasha allah aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaanu leenahay annaga horaba ictiraafoon u helnay maanta farmaajona ugama baahnin cid kalena ugama baahnin waxaanu leenahay maasha allah waanu hanugu daalin farmaajo hanugu daalin farxadda maanta lama soo koobi karo waan faraxsanay farmaajona fariin baan faraya adaa suuli lagu ilaaliya oo ciidanku ilaaliya annaga nalama ilaaliyo marka annaga waxaan ku soo faranaa Soomaaliland faraha kala bax faraxsanahay shucuurteeda lama soo koobi karo waxaan leeyahay dawladda farmaajo xasiisad baa noo walaaqday waa adeerkaa noo walaaqay xasiisad iyana loo lix jir ayaa dalka laga qaxay xasiisad baan ku quraacdan ku qadeeyay aad baan u murugoonayaa markaan siyaad bare iyo wixii la kacaanka ahaan xasuusto aad baan u murugoonayaa farmaajo ma arki karo farmaajo iyo adeerkii wuxuu nagu sameeyey wuu ogyahay waxaan leeyahay maanta farxad bay ii tahay bashbash iyo barwaaqo ii tahay indiraafkii inaan gacanta ku haysta ayay ii tahay maanta ilaahayna ha aqbalo farmaajona waxaan leeyahay farmaajo ka bax badahayga ka bax allahumma salli ala maxamed sayyidina mawlana maxamed ilaahay barakada rasuulka hayna geliyo ilaahay barakada rasuulka hayna geliyo ilaahay hayna badbaadiyo ilaahay hayna nabadgeliyo dalkeena allah inoo nabadgeliyo diinteena allah inoo nabadgeliyo madaxdeena allah nabadgeliyo وجهنا الله نبتقليه عدونا الله جبيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أبان فرحتنا هاي مركا روحنا ما هنقيا الله ودل سبحانه وتعالى مركا الله بدنا وحنا ما هنقيا مدحونا جمهورية سوماليلاند سوتش هذه عندها عالمك. محمد علي روح تلفزيون عالمي قومي تي في مقالة بربرة.